kulanti wacan dhammaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii isbuucu tagay iyo wargeyska maalinlaha Jubba oo aad maalin walba oo talaada aad naga daawan kartaan bartaanu baraha bulshada ku leenahay sida YouTube-ka iyo Facebook-ka. Barnaamijka qodobada aan maanta idinkugu hayo waxaa ka mid ah kooxda Damul Jadiid oo loo fududeeyay boobka hantida qaranka, Al-Shabaabkii ugu badnaa lagu laayay deegaanka Buulaburde, ATMIS oo ku soo biiray dagaalka kacdoonka shacabka ee ka socda gobolka Hiiraan. aanu ku bilownay jab xooggan ayaa soo gaaray kooxda Al-Shabaab dagaalkii dhexmaray ayaga iyo ciidanka xoogga dalka kaasoo ka dhacay duleedka magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa ku bilaabmay weerar ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Ciidamada qaranka oo gacan ka helayo dadka deegaanka ayaa hareeriyay maleeshiyada Al-Shabaab ayagoo markaa ku sugnaa goob webiga jiinkiisa oo ay doonayeen inay kaga tallaabaan dhanka kale ee webiga, isla markaana lagu xasuuqay boqolaal ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in ku dhawaad 200 oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen, halka qaar ka mid ahna ay soo dhiibeen. Wararka ayaa sheegaya in qorshaha Al-Shabaab uu ahaa inay kala jaraan isku socodka labada magaalo ee Beledweyne iyo Buulaburde, balse maamulka deegaanka Buulaburde ayaa helay warar ah in Al-Shabaab badan oo doomo wata ay soo degeen duleedka magaalada Buulaburde. isla markiiba waxaa u ruqaansaday goobahaasi ciidanka xoogga dalka iyo maleeshiyada macawiisleyda, isla markiina waxaa meesha ka qarxay dagaal faraha loogu gubtay oo socday muddo 12 saac. ciidanka xoogga dalka ayaa gurmad xooggan u diray deegaanka Jicibow oo ah meeshii ay dagaaladu ka dhacayeen, taasoo sababtay in cagta ay mariyaan maleeshiyada Al-Shabaab. khasaaraha Al-Shabaab loo geystay ayaa noqonaya kii labaad ee looga dilo dhawaad 200 oo maleeshiyo tan iyo dagaalkii looga xoreeyay magaalada Janaale. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hawada ka saartay website-yadii iyo page-kii Al-Shabaab ku faafin jireen propagandadooda ayaa ilaa iyo hadda wax war aan ka soo saarin khasaarihii ka soo gaaray dagaalkaasi. waa hagaag dhanka kale ciidamada ATMIS oo kaashanaya dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hirgeliyay goobo laga maamuli doono dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo maleeshiyada macawiisleyda, taasoo ay ku sheegeen in kor loogu qaadayo isku dabaridka iyo qorsheynta howlaha dagaalka. mas-uuliyiin ka socotay labada dhinac ayaa warbaahinta u sheegay in duulaanka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu garab ku socdo qorshihii ciidamada qaranka ay kula wareegi lahaayeen dhammaan ammaanka dalka. taliyaha ATMIS ayaa sheegay in xarunta loo hirgeliyay ay ka shaqayn doonto go'aamadii ay gaareen qaramada midoobay iyo dowladda Federaalka Soomaaliya oo ahayd in ciidanka xoogga dalka ay la wareegaan gabi ahaanba ammaanka dalka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdifataax Qaasim oo goobtaasi ka hadlayay ayaa sheegay in guulo xoog leh ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay, taasoo ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo ATMIS. howlgalladaasi oo ka dhacay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. waxa uu kaloo yiri waxaan ugu hambalyeynaya ciidamada ATMIS hirgelinta xarumaha howlaha wadajirka ah, taasoo gacan weyn ka qaadan doonta isku xirnaanta labada ciidan. saraakiisha labada dhinac oo isku duuban iyo wada shaqayntooda ayaa xaqiijin doonta in howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay guul ku soo dhammaan doonto, ayuu yiri wasiir Cabdifataax Qaasim. ATMIS oo looga bartay inay sheegtaan guulo ay gaareen ciidanka xoogga dalka ayaa la filayaa inay si toos ah u soo galaan dagaalka, maadaama aysan weli ku wareejin ammaanka dalka ciidanka xoogga dalka. weli waxaanu ku wada jirnaa barnaamijkeennii isbuucii tagay iyo wargeyska maalinlaha Jubba. madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray dekreeto uu ku kala dirayo guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa sida tan u qornaa madaxweynaha oo ka duulaya ahmiyadda labada guddi ay u leeyihiin dowladnimada Soomaaliya iyo sida ay u tahay laga maarmaan inay u tahay dhismahooda loo maro nidaam waafaqsan dastuurka dalka. waxa uu madaxweynaha faray xukuumadda inay soo dhisaan golaha una soo si waafaqsan dastuurka qaranka. Villa Soomaaliya ayaa ku andacotay in aan loo marin nidaamka dastuurka dhismaha labada guddi, maadaama xilligii la magacaabay uu baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kala noqday kalsoonida xukuumaddii uu hogaaminayay Xasan Cali Kheyre. Damul Jadiid oo horey looga bartay isdhexyaac iyo boob hanti dadweyne ayaa dhalisay hadalhayn kala dirista labada guddi, taasoo inta badan dadku u arkaan inay ka dhigan tahay waddo loogu balninsanayo hantida guud. dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa meel sare ka gaartay la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo isla markaana noqotay dowladdii ugu horeysay oo xabsiga dhigta mas'uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo 1990kii. dhanka kale qodobada caalamka ugu xiisaha badan ee isbuucii tagay waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalada u kala gooshay qariiradaha dulmarisay dalka Japan. shacabka Japan ayaa maalintii Arbacada ku soo baraarugay gambaleelada la yeeriyo marka ay jirto khatarta dhanka madaafiicda ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa markeedii koowaad tijaabisay gantaalada loo yaqaan ballistic missile-ka in ku dhow muddo 2 sano ah.
tijaabada gantaalada ayaa imaanaysa xilli reer galbeedku uu ka walwalqabo Ruushka iyo cabsida laga qabo inay isticmaalaan hubka nuclear-ka. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa isla markiiba saxaafadda la hadlay isagoo ku tilmaamay tijaabada gantaaladaasi inay tahay daandaansi, isagoo isla markaana ku baaqay in dowladdiisa iyo xulafadiisaba ay ka falcelin doonaan. Dowladda Mareykanka iyo Koonfurta Kooriya oo weeshanayo Japan ayaa dhoolatus iyo digniin u diray Kuuriyada Waqooyi. Dhanka kale, Ruushka ayaa bilaabay duqeynta caasimadda dalka Ukraine, taasoo baryahan ka nasatay gantaalada Ruushka. Duqeynta ayaa imaatay xilli ciidamada Ukraine oo gacan ka helayo gaashaanbuurta NATO ay la wareegeen magaalooyin ay horay u haysan jireen ciidamada Ruushka, iyo qaraxii ka dhacay bundadii isku xiraysay Ruushka iyo gobolka Crimea oo Ruushka horay uga qabsaday dalka Ukraine. Dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia ayaa laga cabsi qabaa inuu Ruushka isticmaalo waxa loo yaqaano tactical nuclear ama nuclear-ka xirfadaysan, taasoo ay ku doonayaan inay soo afjaraan dagaalka. Dhanka kale, Human Rights Watch-ka Iran ayaa soo tabisay in ku dhawaad 180 qof ay ku dhimatay oo ay 19 ka mid yihiin caruur banaanbaxyadii ka dhacay dalka Iran. Banaanbaxyada ayaa galay isbuucoodii afraad kadib markii booliska anshaxa dalka Iran ay dileen gabadh 22 jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini. Banaanbaxa ayaa ku faafay dhammaan magaalooyinka Iran, taasoo hadda u eg inay isku bedelay qalalaaso ay shacabku ku doonayaan isbedel dhab ah. Dadka u hunguriyeeya siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegaya in ay u egtahay inay ka dambeeyaan reer galbeedku, ayagoo markaasi tusaale u soo qaatay banaanbaxyadii ka dhacay dowladaha carabta ah, taasoo ay ka dambeeyeen reer galbeedku. Intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. Fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo isla markaana barnaamijkeena sheer garanayo, aragtidaada ku dhiibo dhanka commentiga ah. Aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Juba waxaan idin leenahay ismaqal dambe.